waa maxay guul? waxaan guul u garanayaa sidan soo socota: farxadda qoyska, xiriirka aad la leedahay Allah iyo kalsoonida nafta. Islaamku siduu u arkaa guusha? wuxuu u arkaa si ka duwan siday u arkaan dadka caadiga ah. waa maxay guul? waxaa jirta su'aal ahayd waa maxay guul oo la weydiiyey akhristayaasha wargeyska The Dreamers Guide Motivation Newsletter. bal aan kuu soo gudbiyo jawaabaha ay kasoo kala bixiyeen. Isaac Lagaspery wuxuu yidhi, ma sheegi karo macnaha dhabta ee guusha, balse waxaan kuu soo koobi lahaa hab fudud oo ah in aad gaadho bartay riyadaadu ku tilmaamayso markaad hesho wixii aad u baahnayd, markaad ka sal gaadho duruufaha iyo caqabadaha nolosha. Charvey Nkrumah isna wuxuu yidhi, guusha waxaan u arkaa farxaddaasoo ka imanaysa markaynu aragno dadkaynu jecelnahay. Janaad Kalele isna wuxuu yidhi, guusha macnaheedu waa inaad gaadho natiijada ugu sarreysa uguna macquulsan higsigeeda. Mary Musambinko isna wuxuu yidhi, guushu waa inaad isku dhiibto Alle, waa bixiyaha nolosha dhabta ah ee aadamuhu raadiyo. guushu waa xakamaynta nolosha, inaad qaabayso, qorshayso nolosha, iyo inaad xaqiijiso sidii aad ku gaadhi lahayd yoolkaaga. taas ayaan guul u arkaa. Humphrey isna wuxuu yidhi, waxaan guul u garanayaa sidan soo socota: farxadda qoyska, xiriirka aad la leedahay Allah iyo kalsoonida nafta. haddii aad u fiirsato qeexitaanadan kor ku xusan iyo kuwa soo socda, dhammaantood waxay ka midaysan yihiin in wax la gaaro. si aan wax badan uga sii ogaado macnaha guusha, ayaan ka dhex baaray 3 qaamuus: qaamuuska afka Soomaaliga, qaamuuska Webster's, qaamuuska Oxford. qaamuuska afka Soomaaliga: guul libin laga gaadho dagaal ama tartan 2 qof ama 2 kooxood u dhexeeya, cid hadidid ama xoolo oror oo wabax ah meel, ceel ku dhow, habeen u hooyasho, xoolo iyo wixii la mid ah. dhaan isku keenid, tusaale, geeli wuxuu iskugu guulmay gasada. qaamuuska Webster's: inaad hesho ama aad gaadho hodantinimo, caannimo. inaad ka miro dhaliso iskuday aad jamatay. qaamuuska Oxford: inaad gaadho himilo ama ujeedo, inaad hesho caannimo, hodantinimo amba aqoonsi bulsho. Islaamku siduu u arkaa guusha? wuxuu u arkaa si ka duwan siday u arkaan dadka caadiga ah, wuxuuna ku soo koobayaa 4 qaybood oo kala ah: iimaan toosan, dhaqan suuban, u dardaaranka xaqa ama tawxiidka dadka kale, u dardaaranka dulqaadka ama samirka dadka kale. guusha dhabta ee lagu waarayo waa ku guulaysashada jannada iyo raaligelinta Alle, sidoo Alle inoo sheegay kitaabkiisa Quraanka Kariimka. qofkii la dhaafiyo naar, jannaduna hoy u noqotay, kaas ayaa liibaanay. ugu dambeyntii, waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan yare kooban wax xun ka fahantay. haddii ay tahay markii kugu horeysay halkan soo booqato, fadlan nagu dhiirigeli subscribe, siina gaarsii saaxiibada. wabilaahi tawfiiq. muuqaalka xigeenteenu ku kulmano, waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum.